galay labadii qodob oo Puntland loo asaasay oo ahaa midna raadinta dawladda federaalka Soomaaliya midda kalena ahayd in la helo maamul adeega asaasiga dawladnimada qabta ee deegaanadaas run ahaantii waxaa la oran karaa labadiiba waa lagu guuleystay Puntland intii ay jirtay waxay hooy u noqotay oo ay mataqaanaa hooyo u noqotay Soomaali badan oo xilligii dawladda Soomaaliya burbursanay intii aan dawlad federaal la dhisin oo aan artan la soo gaarin iyo dawladdii ka dambeysay oo TFT-da labadaba Soomaali aad u fara badan baa meeshaas hooyo u noqotay oo ku noolay kuwa ganacsi fara badan ka sameeyay waxay ahayd meel Soomaaliyeed alxamdulillaah rabbil caalamiin meel Soomaalida u siman Soomaali aad u fara badan baa hadda madax ka noqotay oo golaha deegaanka hadda Soomaaliya dhan baa ka tartamaysay waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid ah oo Puntland u qabsoomay intii ay jirtay doorashooyin aan weli Soomaalida kala gaarin marka laga reebo Somaliland oo ay ka mid tahay hadda golaha deegaanka oo la dhammaystiray 3 degmo ugu dambeysay iyo gulo kale oo fara badan marka waxaan ayadana rabaa inaan halakan caawa uga mahadceliyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ballanqaadkiisii doorashada oo ahaa in qodobadu ballan qaaday oo hortaminta lahaa waxa ka mid ahaa inuu qabanayo doorasho qof iyo cod ah taas ayuu oo sidoo ugu guuleystay oo u dhammaystiray waxaan rajaynayaa in dadka Puntland iyo Soomaalidu ay abaal uga hayso waxaan kaloo rabaa inaan madaxweynaha Puntland uga mahadceliyo waxyaabaha ay ka mid yihiin tanaasulkii uu tanaasulay xilligii hadda doorashada markii la isku qabqabsaday oo qof iyo cod shacabku aad u rabay niman siyaasiyiin ay doonayeen in lagu laabto 66 tanaasulkii uu madaxweynaha Puntland tanaasulay waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo anoo ku hadlaya afkayga afka waxgaradka afka jaaliyadda iyo afka siyaasiyiinta Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha Puntland waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo sidii uu uga qayb galay tartankii Soomaaliya kadibna markii dambe natiijadii asaga iyo ragii musharaxiinta ay u aqbaleen taasoo ahayd asaaskii Puntland loo asaasay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ka hadlo maxaa inoo qabsoomay 26 sano ka bacdi maxaa si hadda in la gudboon waxaa inoo qabsoomay waxyaabahaas aan soo sheegay oo aan hadda ku laabanay waxaase in la gudboon in Soomaaliya aynu raadino wax kasto aynu tabanno iyo si kasto oo mataqaanaa xagal daacin u jirto oo ay tabasha u jirto waxaan ku talin lahaa in aan laga daalin in la raadiyo ugu dambeyn waxaan rabaa qodobka ugu dambeeya aan rabaa inaan ka hadlo waxa weeye inaan u tacsiyeeyo dadkii maanta waxyeeladu ka soo gaartay xeebta Liido oo aan waxaan jeclaan lahaa inaynu dhammaanteen u ducayno caawa habeen farxadeed weeyaan waa 26 guuradii Puntland waxaa laga yaabaa 26 kaba waan joogaa aniga 26 kaba waxaa laga yaabaa dad aan joogin inay halkaa fadhiyaan runtii waa farxad in wiil aad dhashay uu ku gaaro 26 oo adoo nool uu 26 gaaro runtii Puntland rag baa ka shaqeeyay inay 26 gaarto aad baan ugu mahadcelinaynaa caawa in si farxad leh meel kasto daafaha adduunka ah loogu dabaaldegayo 26 guuradii Puntland aad baan ugu faraxsanahay runtii intaa kadib madaxweynaha shalay markuu khudbeeyay runtii aad baan ugu farxay Puntland dad gaara ma laha wuxuu sheegay inay Soomaaliya oo dhan leedahay shalayto ninkii Garowe laga doortay wuxuu ahaa koonfur galbeed sidoo madaxweynaha khudbadiisa ku sheegay yani cid kastoo Soomaali ah oo Soomaalinimadeedu ay sax tahay waxay leedahay Puntland marka waa farxad gaar ah iyadana waa farxad gaar ah waxaan rabaa intaa kadib inaan u mahadceliyo madaxweyne ku-xigeenka ra'iisul baarlamaanka iyo baarlamaanka maxay ahayd Puntland iyo shacabka Puntland oo iyaga oo gacmaha haysta gaarsiiyay meesha ay maanta joogto
intaa kadib waxaan rabaa sheeko yar inaan idin dhexgeliyo soomaalida dhaqankeedu waxaa weeyaan laba nin oo walaalo ah ayaa waxay col lahaayeen muddo 15 sano 15 sano col lahaayeen kadib Soomaalidu ma ogaad inay col yihiin labadan nin ee walaalaha waana islamana deganaan meel buu degan yahay midkii yaraa gabar uu dhalay baa kii weynaa laga soo doon wuxuu ku hadlu garan way ma dhihi karo walaalkay aniga 15 sano ma wada hadlin ma dhihi karo oo dad baa u fadhiya wuxuu yiri ii soo dhawaada maxay ahayd waxaan aadayaa walaalkay hooshana gaarsiinaya reerkii markuu ku soo baxay yaa ilmihii waxay yiraahdeen aabo nin baa soo socda markaas islaantiisa waxay tiri waa walaalkay yimi imaanaya wuxuu yiri waxa soo socda fiiri ma wallahi waa walaalka buu wuu soo baxay wuu soo dhaweeyay ii waran buu yiri wax u jiraan wuxuu yiri walaal waxa gurigayga jooga buu yiri dad aan garanayn waxaan isu qabno laakiin garanayo waxaan isu nahay inaan wada dhalanay bay garanayaan buu yiri laakiin ma garanayaan ani adiga inaan colnahay waxayna rabaan gabadhaadii khadra ahayd bay rabaan runtii labadii qof way isku soo ooyeen qalbiga isa saareen way ismarxabayeen aabi wuxuu yiri gabadhi wataa hadaad ka xaysanayso gurigaaga geynayso nimanka ku daraysid iyo hadaad soo guuraysid oo halkan aan ku wada guurinayn labadii reer arintii farxad bay u noqotay way isku soo guureen way wada degan yihiin gabadhina meeshii baa lagu guuriyay ummadda Soomaaliyeed waa saas oo kale dadku waxay ogyihiin inaan wada dhalan waxba hebel waa Somaliland iyo hebel waa kilka shanaad iyo hebel waa NFD iyo hebel waa Puntland hebel Jubaland ma yaqaanaan waxay yaqaanaan inaan Soomaalinahay oo kaliya bay yaqaanaan aan ilaalino midnimada aan ilaalino walaalnimada aan ilaalino dadnimada inta badan waxaan sheegnaa saddex shay oo aanan ku dhaqmin waxaan dhahnaa midnimo aan raadino nin walbana dantiisu qabsada waxaan dhahnaa aan raadino maxay ahayd dawladnimo waxaa lagu helaa shacabka oo is haysta ayaa dawlad noqda shacabka hadduu is haysanin dawlad meesha kama timaado markaan isku dayno in shacabkeenu uu midoobo aan isku dayno inaan midnimada ilaalino aan isku dayno inaan cadaaladda ilaalino aan isku dayno inaan xushmayno kan weyn oo kan yar oo xushmeeyo oo qof waliba uu noqdo mas'uul ka tirsan mas'uuliyiinta maxay ahayd waayo qof walba waxaa saaran xil gabadha Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed dhammaan waxaa saaran mas'uuliyad gaar ah mas'uuliyadda gaarka ah aan nin waliba ha isku dayo inuu ka soo baxo waqtiga gaaban waa arkaysan odaga laba jeer buu ugu soo noqday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya noolaada insha Allah marka ugu horeysa waxaan joognaa xaflad 26 guuradii xafladda maamulka Puntland marka ugu horeysa marka waxaan rabaa inaan horta marka hore aan dadka ka soo qayb galay xafladda aan soo dhaweeyo aan idhaaho waad mahadsantihiin intaa ka bacdi xafladda sidaas la eeg odayaashii hore u hadleen ama ay waxa way idhaaheen baan rabaa inaan idhaaho hambalyo reer Puntland intaa ka bacdi maamulka Puntland wuxuu dhisay yahay 26 sano runtiina waxaa la odhan karaa wuxuu gaadhay ama meeshuu gaadhay waa meel ku dayasho mudan qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta oo waxgarad ah wuxuu mudan yahay inuu bogaadiyo ama uu soo dhaweeyo ama maaragtay uu u mahad celiyo si gaar ah madaxda hadda joogta ee ku guuleysatay doorashadii hadda dhawaan dhacday saddexdii degme ee ugu dambeeyay doorasho laga qabtay one man one vote ah waan u mahad celinaynaa aad u mahadsan yihiin waa intaas oo lagala sii dhawaado waxaan rajaynaynaa Soomaali weyn oo dhan in la gaarsiiyo oo ay ku dayasho mudan tahay markaan intaa ka gudbo waxaa la igu yeedhay kolley xafladda maadaama oo ay qosaysay uun
hambalyadaas iyo maaragtay xilaatan guuradii Puntland maadaama la igu yeeray magaca maamulka cusub ee Khaatumo State of Somalia waxa weeyaan waxaan leeyahay maamulka cusub isaga laftigiisa waan u hambalyaynaynaa madaxda joogta iyo madaxda maaragtay maamulaysa ama hogaaminaysa iyaga oo duruufo badan ay ku xeeran tahay waan u mahadcelinaynaa laftigooda waxaan leenahay halka aad joogtaan hore uga sii socda iyada oo ay jirtay last year ama sanadkii la soo dhaafay aad ogeydeen ummadda Soomaaliyeed ama caalamka oo dhan in dhibaatooyin badan ay ka dhaceen ama maaragtay deegaankaas ay ka dhaceen laakiin waxa la oran karaa maanta waxay ku jiraan iyada oo muddo yar ka soo wareegtay maamulo badan ama ka horeeyay ayay xagga horumarka iyo nabadaba ay maaragtay la oran karaa way kaga horeysaa iyada oo aynu ognahay madaxda maamulka SSC Khaatumo inay meelo badan ama goobo badan oo ay ka hadleen ama maaragtay khudbada ka jeediyeen ay dadka Soomaaliyeed iyo adduunkaba ay u sheegeen inay nabad cid walba kula noolaanayaan taasi waa arrin bogaadin leh cid kasta oo deris la ah iyo cid kasta oo maaragtay ay wax ka dhaxeeyaan iyagu waxay jecel yihiin inay nabad kula noolaadaan nabadaas waxay u baahan tahay in lagu booriyo ama maaragtay lagu taageero intaynu ognahay nabadaas in badan bay isimada maamulka iyo maaragtay madaxduba ay ku celceliyeen ama ay uga ka codsadeen cid kasta oo wax kala dhaxeeyaan cid kasta oo deris la ah ama cid kasta oo ay soo mareen wax soo kala dhex mareen waxa weeyaan ay rabaan inay nabad kula noolaadaan sidaa darteed waxaan leenahay nabadu waa muhiim dadka u baahan ummadda u baahan Soomaali oo dhan baa nabadda u baahan iyadoo la waayo mooyaane oo maaragtay la waayo mooyaane marka dhammaantiin waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo Puntland dadka Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay xafladan iyo gabdhaha quruxda badan waxaan leenahay iyo dhalinyarada iyo odayaasha iyo aqoon-yahanka waxaan leenahay waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan u hambalyaynayaa aan u mahadnaqayaa hambalyo ka hor jaaliyadii iyo asxaabtii iyo walaalihii qiimaha badnaa ee isku howlay xafladan quruxda iyo qiimaha ee mugga iyo miisaanka leh oo runtii waqti iyo dhaqaale iyo runtii nafba ku bixiyey aadaad u mahadsantihiin ajri iyo xasanaad aan la soo koobi karna allah idinka siiyo intaa kadib waxaan rabaa inaan dhaho hambalyo habeenka Puntland hambalyo jaaliyadda Puntland ee adduunka meelaha daafaha kala duwan hambalyo hooyada federaalka Soomaaliya hambalyo jaaliyad isku duuban mug iyo miisaan leh nabada jecel runtii midnimada iyo wadajirka mar walba ka shaqayso maanta ma xallin jiray ishaag ku astaysan runtii dad nabadeed oo deegaan nabadeed ka soo jeedo hambalyo reer Puntland runtii waxaan mar walba dhageysanaa heesaha Soomaalidu waa dhageysanaa laakiin heesta mugga iyo miisaanka leh aniga kale qalbigayga taabanayso waxay tahay ku dayo Puntland ku dayo Puntland waxaa looga dayanayaa nabadda Puntland waxaa looga dayanayaa wadajirka Puntland waxaa looga dayanayaa nidaam iyo kala dambeyn iyo isku tashi dhan walba leh runtii waxaan leenahay jaaliyadaha kala duwan ama dawlad goboleedyada kala duwan inay Puntland ku daydaan sidoo kale Puntland waxaa looga dayanayaa siday u garab istaagtay dhidbaha ugu aastay u weynaysay u cisaysay dirisnimadeeda iyo jiritaankeeda u dhistay walaalihii SSC Khaatumo ee waqti badan u baahnaa inay helaan midnimo sidaa darteed aniga caawa hadalkayga waxaan ku soo koobayaa Puntland maadaama ay nidaamkii iyo kala dambeyntii deegaankeeda ay ka shaqaysay mar labaad iyo mar saddexaad hooyada waxaan leenahay ka shaqeeya wadajirka Soomaaliya ka shaqeeya Soomaali hal ah ka shaqeeya deegaanada Soomaaliyeed oo nabdoon dhan walbana insha Allah tacaala Soomaali oo midahan Ilaahay ka rajaynaya mudayay marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaakadii marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii Soomaaliyeed
dhalinyarada u badnaa maaragtay iyagoo waqti fiican xeebtooda maaragtay laga dhale maaragtay biyaha diiran leh doonaya inay cabaar ku istareexaan lagu xasuuqay xalay aad baan uga taxseenaya ilaahay ha u naxariiso inta dhimatay inta dhaawacana ilaahay ha u booga dhaco qaraabadoodii iyo ehelkoodiina samir iyo imaan allah ka siiyo idinkana waa idinka mahad celinayaa xafladda maaragtay aad qabateen oo maaragtay aad ku maamuusteen sanad guurada 26aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Puntland guud ahaan jaaliyadda Puntland iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee kala qaybgelaya intaba waxaan idin leeyahay hambali Puntland waxay u taagan tahay waa dhul Soomaaliyeed oo ammaan ah waxaa lagu aasaasay in markii dalku 1990 uu burburay dadkaas ismaamulaan maaragtay maamul ay ku kala nabad galaan Soomaaliya kaga nabad galaan ay aasaaseen markii lagu guuleystayna waxaa loo gudbay sidii Soomaalinimadooda loo gaarsiin lahaa baa laga shaqeeyey ilaa aakhirkii calankii Soomaaliyeed mar kale bille Soomaaliya madaxweyne Puntland uu soo qaaday oo ku soo celiyey iyadoo xoog iyo xoolo iyo dhiig dhalinyaro Soomaaliyeed oo fara badan ay ku baxeen muddada la sii waday calanka halkaa la gaarsiinayay bille Soomaaliya in dowladnimo laga aasaaso waxay mar labaad Puntland ummadda Soomaaliyeed oo kala shirkiday oo kala maartay irdhowday inay is aaminto inay ku soo noqon karaysay oo kaliya inay wax wada yeelato waxna kala lahaato oo nidaamka federaaliga uu noqdo lagu kala nabadgelayo la isku aaminayo la isugu soo noqonayo lagu wada heshiin karayo iyadoo dowladda dhexe awoodda keligeed aanay urursanayn ee awoodaha la qaybinayo adeegga dadka la gaarsiinayo dowladnimadana loo dhaweynayo nidaamkaas muddaa la dhirinayay Puntland si fiican buu uga taaba qaaday dimuqraadiyad baa loo gudbay dowladaha hoose la soo doorto qof iyo cod lagu soo doorto oo dadka Soomaaliyeed u siman yihiin dadkii ku noolaa halkan ku dhaqmay iyo dadka gobollada kale ka yimina ilaa iyo dadka koonfur galbeed ka yimid waxay ku soo baxeen maartay xildhibaanadii golaha deegaanka ee magaalada Garowe ay ku soo baxeen dadkii koonfur galbeed ka yimid taasi waxay astaan u tahay iyadoo hore baacmishtarka loogu sinaa oo deegaanka loogu sinaa oo suuqyada Garowe iyo Boosaaso iyo Galkacyo la saaro hadda tagto dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ka baacmishtareeyo hanti ku haysto oo deegaanka ka helayso haddana siyaasadii in loo siman yahay oo maartay qof dhowr sano ka hor 8 sano ama 10 sano ka hor ka yimid koonfur galbeed inuu xildhibaan isu soo sharaxay Garowe kuna guuleystay waxay caddeyn u tahay inuu dhul Soomaaliyeed yahay dowladnimo Soomaaliyeed iyo qarnimo Soomaaliyeed u taagan yahay ammaanna yahay dadka Soomaaliyeed ku nabad qabaan waxay u rajeynaysaa oo kala shaqeynaysaa weli ummadda Soomaaliyeed inay dowladnimo federaal ah oo dimuqraadiya isugu soo noqoto aan xukunka la isqasbin laakiin dadku qofka ay doonayaan ay doortaan inay hirgasho way weli ka shaqeynaysaa Puntland aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idinku hambalyeynaya muxuu xafladda guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda reer Puntland ee soo abaabshay xafladdan waxaa loo dabaaldegayaa caawa 26 guuradii ka soo wareegtay Puntland waa Soomaaliya Soomaaliyana waa Puntland run ahaantii qofka Soomaaliga ah markuu dhashay magac ahaan Soomaali inuu qaato Ilaahay baa u dooray marka labaad Ilaahay baa u dooray
magaca islaamnimada inaan wada qaadano waxaan inagu soo iibsanay maaha labadaba ilaahay baa noogu deeqay rabbi asagaa ku mahadsan soomaalidu haddii ay joogaan kilika shanaad jabuuti north eastern kenya gobollada koonfureed gobollada dhexe gobollada waqooyi jabuuti iyo puntland intaba waxaan ku joognaa magac muslimnimo iyo magac soomaalinimo kaasaana deeqay oo naga badan oo ilaahay uu nagu maamuusay rabbi subxaanahu wa tacaala isagaa ku mahadsan markaan ka soo gudbo mahadnaqa iyo maamuuskaas waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo hambalyada aan la qaybsado dadka caawa hortayda fadhiya ee u badan reer puntland inaan idhaahdo puntland ha noolaato 26 guuradii ka soo wareegay runtii puntland ka aniga ahaan shakhsiyan aniga puntland kuma dhalan laakiin horaan u qeexay inay puntland soomaali tahay soomaalina ay puntland tahay puntland anigu xaq bay ugu leedahay anna xaq baan ku leeyahay gaara waayo waa meel aan garanayo hiddaheeda aan garanayo dadkeeda aan garanayo dabeecaddeeda aan garanayo hawadeeda iyo environmentgeeda iyo inta waxay ka koobanta oo dhan aan garanayo oo anigu aan ka soo shaqeeyey intaa ka gadaal waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan idinkaga mahadceliyo sida caawa aada u garab taagan tihiin reer puntland idinka oo wada soomaali ah oo aan la idinka lahayn puntland innagaa ah anigaa ah idinkaa ah cid walbaa ah waa la kala badsan karaa maamulkeeda iyo hawsheeda xoogaa waa la kala riixan karaa taasna waa sunno ilaahay u jideeyey ummadda soomaaliyeed qofka gurigiisa inuu asagu maamulo oo qurxiyo ka walaalkii ee martida ana inuu la yeesho oo wax ka siiyo taasi waa sunna tallaahi laakiin waxaan qirayaa inaan puntland wada leenahay maadaama aan idhi oday soomaaliyeed aan ahay puntland waa soomaaliya soomaaliyana waa puntland marka waxba in lagu sii mashquulo maaha reer puntland ha noolaadaan puntlandna ha noolaato waxaan rabaa inaan fariin halkan ooga diro maamulada kale ee koonfureed iyo kuwa puntland jiraanka la ah inay ku daydaan puntland runtii waxay mudan tahay ku dayasho in lagu daydo lagaga daydo ismaamulka iyo isxakameynta nabadgelyada dhaqaale abuurka siyaasadda wanaagsan tacliinta horumarka reer puntland ay ku baraareen ee lagu yaqaanay inay maamulada kalena ku daydaan maamulada weliba caawa aan raba codkeyga sida buuxdo in aan u gaarsiiyo ayaa waxay tahay maamulka galmudug iyo ka hirshabeelle ka jubbaland iyo ka koonfur galbeed runtii puntland ku dayashay mudan tahay innagu xoogaa soomaali haddaan nahay goolaaftanka siyaasadeed runta laguma qeexo waxaa fiican inaan libinta isu ogolaano wuxuu walaalkaa kaaga fiican yahay inaad kaga dayato waxaad kaga fiican tahayna uu kaaga daydo puntland waxaan qabaa in lagu daydo oo lagaga daydo ismaamulka iyo ismaqalka iyo dimuqraadiyadda iyo codbixinta iyo isgarab istaagga in lagaga daydaan qabaa taas yaa waxaa lagu gaari karaa horumar iyo jiilka soo koraya hiigsigooda siyaasadeed iyo meeshay rabaan inay ku cabiraan fikirkooda oo ay ku gaaraan waxaan leeyahay puntland 26 guurada ka soo wareegtay asaaskeedii puntland ha waarto puntland oo baraartay ama meel sare gaartay waa soomaaliya oo meel sare gaartay waxba ma kala nihin isku qoys baynu nahay isku dad baynu nahay isku dhiig baynu nahay isku af baynu nahay isku aragti baynu nahay soomaali midnimo iyo sharaf iyo garab istaag bay wax ku leedahay kala qooqoob ma uu jiro ilaahayna nama kala qaybin meelaan ku kala haraynana ma jirto waa isdaba soconaynaa waxbaan kala leenahay magaca waa kala yeelan karnaa laakiin wada jirku waa mid waa wada soconaynaa teen iyo weligeen waxaan leeyahay 26 guurada ka soo wareegtay ilaa 30 ha gaarto puntland ilaa 40 ha gaarto ilaa 50 ha gaarto biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xilli annaga aynaan nooleen ayay gaari doontaa way mahadsan tahay puntland waxaan u mahadcelinayaa intii soo aasaastay xafladda qiimaha badan iyo intii gelisay juhdigan qiimaha badan ee meeshaan soo gaarsiiyey intii caawa xafladdu soo agaasintay ugu horeeya saaxiibkay boqor faahiye oo run ahaantii wax badan soo dadaalay iyo intii la soo qaybisay hawshan
ee gabdhaha quruxda badan iyo dhallinyaradaba ay ka midka yihiin walaalayaal qarannimadu waxa ay qeexaysaa dhul dad diin dhaqan iyo qiyam ay wadaagto ummadi si wadajir ahna ay u ilaashato dowladnimo waa habdhis ka kooban unugyo habaysan oo xukuma ilaaliya cadeeya xalliya dabra dhammaan habdhaqanka bulsho meel ku wada nool una yeelo bulshadaas sooc ay kaga duwan tahay bulshooyinka kale ee dariska la ah ama dunida inteeda kale dowladnimadu waa mas-uuliyad wadareed ka samaysmay iskaashi bulsho oo ku salaysan maamul iyo maarayn kala dambeyn sharci oo bulshooyinku ay iskula fahmeen inay ku wada noolaadaan horumarna ay ku gaaraan haddii aynu fahanay qarannimada iyo dowladnimada haddaba dowladnimadeenna waa in ay yeelataa arrimahan soo socda lagana helo nabadgelyo waarta oo la isku halayn karo xasilooni siyaasadeed isku filnaansho dhaqaale deganaansho guud dowladnimo rasmi ah dimuqraadiyad dhab ah isku filnaansho qofeed dareen lahaansho midnimo iyo wadajir isla xisaabtan dhab ah xukuumad madax bannaan garsoor dowladeed iyo sinaan waa in qabyaaladda iyo dowladnimada la kala saaro federaalka sidoo kale awna horseedin in ay ummaddu kala fogaato oo dadku ay kala tagaan waxaynu joognaa halkii uu ka yiri awaan kayd maxamed cabdalle isma qaban karaan dowladnimo iyo qolo iyo reereere hadday kala qalooto danguudka la isla qaban waayo qolo waliba kay dooratiyo quulo daba duuluudo waa buraarad kala daadatiyo qurubyadeediiye qarannimo markii lagu fekeray quusta odayaale qurankiina huursada ilayn kama khashaabtaan mar kale waxaa leeyahay reer puntland hambalyo guulaysta unoo ka hadalow afka jaaliyadda dalka koonfur afrika ee koonfur galbeed ahna guddoomiye ku-xigeenkii jaaliyadda cusmaan ciidan baraka may farxad in ee uulka inyanaasin kula qayb gara sanad guuradii 26 ee xafladii puntland may siin lanaa hambalyo garowna baydhowna garow may kaloo eedtiinka ka hambaliyeeyay doorashadii quruxdo badanayti soomaali wiindhon daawadaasi waana aragaasi natiijadii ku dhalati ama hakubati howna anna maamulka koonfur galbeed eedaanka faraxsanna waana hadhowaayana maadaama golaha deegaan doorashada ee garow ninka guulaysani xildhibaanna ku hadli xildhibaan axmed maxamed sheekh maylana xildhibaan axmed maxamed sheekh maylana bulsho sidiiba way tacbaday bulshada reer garow iyo bulshada reer baydhabo hala kimidee alla kii weela xildhibaane waana hadhawaawa kalana may kaloo anta hambalyo unku daray madaxweyne saciid cabdulaahi dani maylana mudane madaxweyne shaqo qurux badan qabati wal eedlanka faraxu howna anna maamulka koonfur galbeed meeloolbuuna roogna oo una roogna may ballan qaadanee waana siinka dhiirigeliyaanee inuuna siin garab taagna ho isin atin reer puntland ama ho isin atin reer garow isingoo wada dhon insha allah ilaahay idiin sheeg dariskeena xalaasha annagu dee puntland dee waa dariskeena xalaasha si gooni ayaan deegaan iyo dalwadaha gudnaa intaba aad iyo aad aan hambalyooda ugu faraxsanahay inaan qayb ka soo noqday sanad guuladooda 26aad hambalyo aan leeyahay hambalyo warqadda wax ku muuqan caawa laakiin waxaan rabaa boonteeda ugu quruxda badan inaan ka taabto reer puntland ayaan ka soo xigtay uguna quruxda badan aan ka soo qaatay oo ah qof walba iyo inay u gudubtay codkiisa
hadhowna aan qofla la-eedin qof walba gacantiisa iyo codkiisa hadhow aado gadaalna aan la iska xaman waa bantiga aan ka soo qaatay ay mudan tahay in looga daysado dhammaan maamul goboleedyada kale intaas waxaa noo gudbayaa hambalyada walaalaheen Puntland aad iyo aad waxaan ugu hambalyaynayaa caawa sharaf iyo karaamo ayay leedahay xafladan qaaliga ah qiimaha leh aan u dabaaltegayno walaalaha qaaliga ee ku dayashada mudan ee Puntland waxaan leenahay waad mahadsantihiin sidaad noo tusteen dimuqraadiyadda iyo in la isla noolaan karo walaalaha iyagoo isjecel isla noolaan karo waad mahadsantihiin ayaan idin leenahay Puntland runtii marka xaqiiqan ka hadlo waa maamul weyn ee Soomaaliyeed ee na tusay in la isla noolaan karo la isna jeclaan karo aan ka baran karno in walaalaha Soomaaliyeed ee shalay kala lumay inay dib iskugu soo noqon karaan way mahadsanyihiin ayaan leeyahay ummada Soomaaliyeed baan salaamaya Puntland sanad guura waxaan waan salaamaya Puntland sanad guura waxaan waan salaamaya madaxdii waddankeena soo maamusho mudnayd madaxdii waddankeena soo maamusho mudnayd halyayga Cabdullaahi yuusan marinaya halyayga Cabdullaahi yuusan marinaya boqorkii Adamu sawatu markaa ku xigay boqorkii Adamu sawatu markaa ku xigay farala mudana madashan ka sheegaya farala mudana madashan ka sheegaya oo cabdi wali waa midkii caada sare ka dhigay oo cabdi wali waa midkii caada sare ka dhigay sareeyow deli sinaantu hormuud u yahay sareeyow deli sinaantu hormuud u yahay oo waa geesi dooraho waan ku diirsanaa oo waa geesi dooraho waan ku diirsanaa deniyo guuleysa weliga hoggaanka qabo deniyo guuleysa weliga hoggaanka qabo Puntland waa hoy barwaaqo badbaado taal Puntland waa hoy barwaaqo badbaado taal kala damayn Puntland waa hoy barwaaqo badbaado taal sinaan iyo kala damayn buu salkeedu yahay sinaan iyo kala damayn buu salkeedu yahay sinaanta lagu yaqaan serihii Puntland sinaanta lagu yaqaan serihii Puntland masaakiintiyo saboolka la saacida masaakiintiyo saboolka la saacida samaan badan weeye Soomaali u wada siman samaan badan weeye Soomaali u wada siman bilalay boosa sadeeqoy barwaaqa joog boosa sadeeqoy barwaaqa joog waa hambalyo iyo magaratay farxad dhammaan reer Puntland dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladana oo qiimaha badan intaa kadib caaway waxaan rabaa inaan u mahadceliyo kasoo qaybgalayaasha xafladda iyo gabagaabayaashii isku hawlay waqtigooda geliyey hadalka lameesha koo bannaan oo dadkiiga horreeyay hadalka soo gabagabeeyey waa la daalan yahay waqtigiina ma rabo inaan intaa ka badan ka sii qaato aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan islaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah Puntland waxaan leenahay jira oo jooga horumara waxaan rajaynayaa insha Allah badilaa baarayay maamulada kaleetana ay ku daysan doonaan insha Allah madaxda hogaamiyada Puntland waxaan leeyahay insha Allah kulay inay dadaalada ay wadaan hore u sii wadi doonaan كلمة إنت كبر بورك إن شاء الله أصحابي هذا هو المسيتي رجع يدوم كنا كسوق قلي بدنا هنولا تويدا فدرالك waxaan hambalyada iyo farxadda la qaybsanayaa dhammaan hoggaanka iyo shacabka reer Puntland dal iyo dibad meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo
reer Puntland xaqiiqatan waxay ku amaanan yihiin waxa la dhaawaa hooyada federaalka kulli hooyada federaalka waxa ay ku noqotay in halkan laga iclaamiyo uma baahno dhammaanteen waan wada garanaynaa horumarka ay ku jirtana ilaahay waxaan ooga baryaynaa inuu ilaahay u laabo nimcada barwaaqada nabadda amniga ay ku jiraan reer Puntland Allah u siyaadiyo waxaan rabaa inaan xafladan uga faa'iideysto hambaliyada qaybna aan ka noqdo sanad guuradii 26aad asaaskii maamul goboleedka Puntland hooyadii federaalka Soomaaliya inta Soomaaliya ee Soomaaliya ee dawladda federaalka Soomaaliya maanta ku mideysanne ay noqotay Puntland maamulkii ugu horeeyay la dhiso maantana jirsatay rubac qarni kor u dhaaftay waxaan leenahay hambalyo shacabka iyo dawladda reer Puntland kuna tilaabsaday tilaabo ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay guud ahaan inay maanta qaadaan oo ah in ay doorasho qof iyo cod ah ee Puntland ka suura gelisay maamul goboleedka Puntland oo hogaaminayo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani waxaan leenahay hambalyo reer Puntland waxaana filayaa kana codsanaynaa maamul goboleedka Puntland Soomaali in la kala qodqobo maamul goboleedna loo sameeyo waxa gaarsiiyo waa qabiil iyo kala irdeyntii ummadii ay kala irdhowday iyo ummadii oo qaab ay u heshiisay la waayay ayaa qaabkan federaalka loo keenay waxaan dawladda Puntland iyo madaxda iyo shacabka iyo salaadiinta u soo jeedinaynaa kana codsanaynaa sidee federaalka hooyo ugu yihiin 26 sano jirsadeen inay dawladdii dhexe ee Soomaaliya ka shaqeeyaan inay ka tanaasulaan calanka Puntland una soo tanaasulaan kii Soomaaliya sida ugu daysdaan maamul goboleedyada kale ee dariska la sida Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ina bixi Puntland ambo ano burtiliyo galdogo ban ku soo bare garuba jacayl iga baxa haya balankiyo ahdigu gura iga la culus ina bixi Puntland ambo ano burtiliyo galdogo ban ku soo bare garuba jacayl iga baxa haya balankiyo ahdigu gura iga la culus birtaygana adag wana soo baxay bayo bosaaso imide halkano balana birtaygana adag wana soo baxay bayo bosaaso imide halkano balana غردا iyo baday hoobeeya bahi kama jido heleleeya barbarkahan dayaba hidbaayo shubahan sato hoobeeya calanka buluuga ka wada babani calankii Puntland ka wada babani balli busle ana barqin seexday badi garaacad baan soo booqday bahi kama jido heleleeya shubahan sato hoobeeya calanka buluuga ka wada babani calankii Puntland ka wada babani bayagaal kayay iga badan taho beerka xuunshadu balagi saaran yahay
الجماعة